afqaloocow meeshaan maray waa aragtaa joogta culus daahir baan gurigiisa tagaa jiri laakiin aniga halkaan baa marayaa waa taqaanaan reer minneapolisna waa yaqaanaan waxaad weeye habeen madow dhuumaysaa maaha soo deg afqaloocow soo deg waad arkaysaa meeshaan maraya ha cabaadina soo deg waad aragtaa live weeye soo deg afqalooc soo deg. Okay, videogaas hadda aad daawateen waa videoga gabadha joogtay ee Candhe Calasi u geysay oo uu soo dhigtay barihiisa bulshada oo uu ku booteynayo leeyahay ku dilaya sana ku yeelaya gabadha horta gabar oo ma aha aniga horta maanta waxaan ciil qabi lahaa Candho basar buufsanay qofka ii ka soo duubay aniga haduu ahaan lahaa qof adiga soo dirsatay wallahi billahi tallahi maanta ciil baa ahaan lahaa laakiin aniga in adeertay still waa ka bawrsaday magaalada anaa rangarayaan ku still anaa rangaray qofka ay soo dirto duubayna anoo ila dhashay waxa adeegsanaysa ana ila wada dhasheen still waa ka bawrsaday asnoonge anaga dhex kaluumaysanayso saan oo dhex wareegayso waan ka bawrsaday horta waa kana videoga gabadha markay duubaysay ayadoo duubaysa hadda idin soo gelinaya arka asagana kulan wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha badan meel walba aad joogtaan iyo si walba aad u daawanaysaan muuqaalkeenan halkani waa Cabdullaahi Yare Official muuqaal kale hor leh ayaan idin wadnaa Nimco Joker oo soo bandhigtay shakhsigii duubay gurigeeda isla markaana uu gudbiyay Daahir Cabdullaahi Calasow oo ayada kala dhaxeeyo dagaal kulul Nimco ayaa sheegtay in shakhsiga duubay kaamirada isla markaana gurigeeda ka qaaday kaamirada ay ahayd shakhsi ayada u dhow isla markaana cadeysay soona saartay kuna soo muujisay barta ay ku leedahay Facebook iyadoona CCTV kaamiradu ay soo qabanayso gabar kaamiro wadato isla markaana uu Daahir Calasow soo adeegsaday sida ayadu sheegtay ya arka asagana rideeday timid way duubtay sidaanay u duubtay waatan ayadu isla dharkii qabta gabadhan ayaa sidoo kale waxa ay duubtay guriga ay degan tahay ee Nimco Joker iyo fanaanka Ilkaasi Qays ee Nimco Joker seegeeda Daahir Calasow oo asagana dhankiisa kale ku faanayay in Nimco Joker uu gurigeeda kaamiro ka duubay banaankana uu u taagnaa kuna cataawiyay in markaasi banaanka uu soo baxo fanaan Ilkaasi balse hadalka ayaa ahaa in Nimco Joker ay sheegtay shakhsiga duubay uusan meel fog ka jirin isla markaana uu ahaa qof ayada u dhow isla markaana si wada jir ah ayada iyo Ilkaasi ay ku sheegeen in qofkaasi uu ka waantoobo falalkaasi uu ku kacay oo uuna soo adeegsaday Daahir Cabdullaahi Calasow ayagoona dhanka kale u sheegay in shakhsigaasi hadduu ahaan lahaa shakhsi ayaga ka fog ay ku soo qaban lahaayeen ama ay soo taagi lahaayeen sharciga balse maysan noqonin waxaana qofkaasi ay uga digeen in fal noocaas oo kala ah uu ku kaco mar kale haddana waxa ay u sheegeen in ay raali gelin ka bixiso gabadhaasi oo kaamirada ka duubtay guriga ay ku wada nool yihiin Ilkaasi iyo Nimco Joker waa tahay dagaalkan u dhaxeeya Nimco iyo Daahir Cabdullaahi Calasow ayaa marba marka ka dambaysa xirka isku sii shareeraya asagoona markaana xargaha sii goosanaya dagaalkan ayaa ah mid aan waxba laga qaban karin oo cid waliba isku dayday in wax ka qabashadiisu ay u tafaxiidato balse ugu dambeyn ay ku soo gawaabsato anigu waxba kama qaban karo haddaba daawade haddii aad ku cusub tahay channelkeena fadlan subscribe noo dheh si annagana dhiirigelin ay noogu noqoto wixii fikir iyo afkaar aad noo haysana qaybta hoose commentiga inoogu reeb waa inoo muhiim dhiirigelintaada halkani waa Cabdullaahi Yare Official